السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحوينها جمهورية الصومالي حسن شيخ محمود أيا مانتا مقدشو كسو حري سيدا أي داوعدي warbaahinta ku hadasha afka dowladda ee la yiraahdo raadiyo muqdisho waa sida ay daabacday warbaahintaasi waxa uu magaalada leeyihiin wuxuu ku soo xiray shir heer qaran ah oo looga hadlayo arrimaha xuquuqul insaanka iyada oo gudaha magaalada ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo dhinaca bini'aadanimada ah iyada oo magaalada ay ka dhacayaan faquuq jinsiyadeed iyada oo gudaha magaalada ay ka dhacayaan xukunno dad lagu riday cawash ay ka qabaan haba ugu dambeysay tii Allah u naxariistay marxuum Generaal Sheikh Axmed Cali haddaba waxaan kula wadaagayaa dhowr qodob oo ku saabsan waxa shirkan uu yahay iyo dhacdooyinka ka dhaca gudaha dalka iyo shirkan marka la isku eego muhiimadda uu leeyahay hayeeshee waxaan marka hore ka codsanayaa inaad muuqaalkan sii gudbiso leegareyso shargareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada ka hore waxaan ku hormaraynaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa leh oo qortay oo daawacday qoraal ay ku sheegayso in Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya uu Muqdisho ku soo xiray waa gudaha Muqdisho ku soo xiray barnaamij ku saabsan oo looga hadlayay arrimaha xuquuqul insaanka waxaana loogu magac daray barnaamijka dhinaca iyo qaranka waxaa ka qayb galayay dad fara badan oo xuquuqul insaanka ka hadla heer caalami iyo kuwa kale intaba haddaba qoraalkan ayay soo qoreen oo ay ku xayeysiinayaan kuna sheegayaan in magaalada ay ka jirto xorriyatul qowl xuquuqul insaan iyo in aragtida bulshada Soomaaliyeed si hufan ay u dhiiban karaan sidoo kale waxay ku sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu bogaadiyay waxa ka socda gudaha dalka ee ah xorriyatul qowlka iyo xuquuqul insaanka sarana loo qaadayo sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud goobta fagaaraha ah uu ka sheegay haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ma saxba oo gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ah halka ay fadhiso dowladda madaxtooyadina ay ku taalo ma ka jirtaa waqtigan xorriyatul qowl taas waxa caddeyn u ah in waayihii dambe ama saddexdan sano ee hadda Xasan Sheikh Maxamuud uu joogo villada in ay jireen caburin dhinaca warbaahinta oo cadeymahoodii had idinkaba indhihiina ku aragteen waxa ugu dambeeyay wariyaashii lagu xiray Muqdisho ee agaasimaha Shabeelle iyo ku xigeenkiisa sidoo kale waxa ku xigay wariyaal kale oo isla bishii hore iyo Ramadaanba lagu xiray magaalada Muqdisho taas oo ka hor imaanaysa xorriyadda hadalka dhinaca kale isla xorriyadda hadalka waxa ku jira dhinaca iyo aragtida bulshada ay dhiibtaan ee banaanbaxyada abaabulan ku aadan haddii ay eedeynayaan madaxweynaha iyo haddii hay'adaha qaar ee dowladda eedeynayaan taas oo qayb ka ah waxa dowladda looga baahan yahay in ay ixtiraamto ay dhorto hayeeshee magaalada waxaa sanado ka hor ilaa iyo sanadkan hadda socda lagu xiray dad badan oo aragtida dhiibanaya xitaa waxaa loogu daray in la xabadeeyo oo xabado nool lagu rido taasi waxay belinaysaa wixii maanta Muqdisho lagu soo xiray waxaa ku darsanaysaa xuquuqul insaanka marka la eego xabsiyada magaalada waxaa buux dhaafiyay oo ku jira oo xuquuqdii caafimaad xuquuqdii maxaabiis xuquuqdii waxbarasho xuquuqdii farsamo aanan helin maxaabiis fara badan oo qaarkood hadda xanuunsanayo waxaa tusaale u ah in aysan jirin arrintaasi Generaal Sheikh Axmed Cali oo sanad iyo dhowr bil ka hor gurigiisa inta lagu weeraray wiilkiisii la dilay asigii dhibaato loo geystay lagu bahdilay Muqdisho kadibna xabsi lagu tuuray la xukumay ugu dambeyntii isagoo ciil iyo calooliyo qaba uu geeriyooday madaxweynihii maanta soo xiray shirkaana uusan ka hadlin wax ka dhihin arrintiisa xitaa u tacsiyadeyn waaye
haddaba adiga ka ahaan ma qabtaa in gudaha dalka gaar ahaan muqdisho ay ka jiraan xorriyadda hadalka iyo in la dhowro xuquuqda qofka muwaadinka ah ee Soomaaliyeed iyo qofka aan muwaadinka ahayn ee xitaa waddanka soo booqda? haddaba qaybta hoose noogu reeb aragtidaada. muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro sii gudbi, like garee, share garee oo la sii wadaag asxaabtaada.